بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو هذا برنامج كمدشها لابوركا. برنامج وحامرتي إنه oo aan ka wareysanayna fankiisi fanaanka dhalinyarada caanka Caabi Mire Dacar. Caabi ku soo dhawo barnaamijka madasha hal abuurka markii kugu horeysay. waad mahadsantahay Xuseen oo dhawaay. Waxaan jeclaan lahaa inaad nooga waranto taariikhdii fanka aad ku lahayd oo muddo dheer aad ku soo jirtay imika walow aanan oran karin inaad ka gabowday. Goormaad bilowday fanka? horta runtii waa saad u sheegtay Xuseen oo muddo badan baan ka hadlay taaqudida laakiin waad ogtahay dadku imika dadkii hore maaha berigii hore ku dhiran jireen dadku inuu yiraahdo muddo badan baa ku soo jiray fanka oo 40 sanadood baa ku soo dhex jiray iyo 20 sanadood baa ku soo jiray wax noocaas laakiin dadkan imika waxay u badan yihiin kaba xishoodaan jirada wax la oran doonaa war ma 40 sanadood buu ku soo dhex jiray wax gaboobay muuskaga haro iyo wax noocaas oo kafta ma ka dhiganaya inta laakiin anigu waxaan bilaabay sida xaqiiqadu tahay 1980 waxaan ka bilaabay wadamada khaliijka wadan kamid ah dalka Imaaraadka Carabta oo Abu Dhabi markaan joogay ka bilaabay bal hadda ahaan dib ugu noqono goormada la tacaabiyo anigu waxaan dhashay markaan xaqiiqada sheego 69 xageed ku dhalatay Ceergaabo markaan Ceergaabo ku soo barbaartay waxaan ku soo barbaaray Ceergaabo iskuulkayga hoose iyo ka dhaxna wax ku dhamaystay Ceergaabo waliba waxaan ka bartay professional aad u wanaagsan oo dadku aad ii wada yaqaanay waayo waxaan ahaa dawarni markaan tol jiray nin ilaahay naxariistay aniga aabahayga labaad ahaa oo la oran jiray Salmaan Ismaaciil Xuseen ayay soo kuriyay isaga ay baray markaa dawarku ay baray sawirku ay baray qabku la sawir wax beeraha sida loo falo ay baray shaqooyin fara badan oo runtii aan ka dhaxlay oo baa jiray aan bartay laakiin halkii aan saan u bartay uma sii wadinay markii aan wadanka ka dhoofay xilligan ku sheegay baan shaqadan aanu bayray tabadayadu ma wali dhex jiray laakiin marka dawarka tulisay ardaygan aad ahayd marna ma kugu jirtay inaad heesto iyo inaad haayo waxay ugu kalifayba waxay ahaayeen ardaynimadayadii markaan dugsiga hoose ahayn waxaanu lahaan jiray de kuwa nimka malaa looga sameeyaan manayay anagu waxa jiray xiisad fanka iyo suugaanta dabadeedna وانا القايمين شلون تصدق قايبودنا اللي قدقوا كلاس كيغا ايا دبدنا ترتن لو سمين جرو wax loo jiray bal heesa ay marka ina kalo isaguna aan isku kalaas ahayn ayaa inta badan qaadan jiray wanka YouTube aan isu bil jiray waxay keentay taasi markii dambe inaan iskuulkii oo dhan intii marka aan isku hayn level ko mesela afar kalaas ama shan kalaas oo 2 ama 3 isku ahaa inta meel la isugu keeno dabadna marba labada xulka ah ee marka ka soo baxa la isu keeno dabadna anigu inta badan waxaan qaadan jiray kaalinta koowaad waxay u kalifay markii dambe inaan hawshan bilaabaan taas u may marka si aad qaadan jirtay waqtigaas ma xasuusta waxaan ka xasuustaa heesihii aan qaadan jiray heesu qaad jiray xasanaad samatar oo runtii marka heesiisa aad jeclaa maxamed Saleebaan Cabdi Tahliil Axmed Moogi runtii oo aan damaq jacayl baa kamid ahay waxa kamid ah heesaha xasanaadan uu qaado heeseen maxay deeyay loo oran jiray siraad Cabdi Tahliil oo kod baa kamid ah heesiisa kuwan jeclaan qaadi jiray isagana maxamed Saleebaan waxa kamid ah isaguna waqti heesa far badan oo caasa jiray oo aan jeclaan qaadi jiray marka heesaha marka ku luqaynayso adigu maxaa dareemi jirtay inaad sidii fanaanka ka weynaad u qaadso طبعا marka deedhigi gilan badan horta lagu siiyo dhowr jeer iskuulka iyo ardayda iyo macallimiintuba ay igu taageeraan oo yiraahdaan wankan waa cod wanaagsan ama hadii jeer marka madasha la isugu yimaado ama iskuulka dhexdiisa ardayda inta la soo wariyo ilaa 600 700 arday meel isugu keeno oo la yiraahdo ka dhaxeys sacabka leeytaba marka waxa la soo istijaan oo ninka kaliya cidba dabada fariisan kari inaan ahaa waqti music lagu garaac jiray ma ay music liimatu jiray anagu ma music liimatu jiray waaga ka soo gudub markii aad tagtay dalka Imaaraadka Carabta halka fankaaga rasmiga aad ka bilowday ma xasuustaa heestii kugu horeysay qaado naam tumay waxay ahayd heestii ugu horeysay markaan kuwa aan leeyahay aanan u gelin anigu sida aan hore uga soo hadalay yaraantaydii aan heesaa koobiga u jeclaan jiray oo soo qaad jiray heestii loo oran jiray oo kale uu lahaa Cabdi Tahliil waxaana igu kalifay markaa riwaayad ay sideen hobaladii waa bil oo ay kamid ahaayeen sooraan oo kamid ahaa Dacar
oo kamid ah khatar daahir oo kamid ah kisa xajaadan qamar cabdullaahi harowo ilaa adigu ilaa 9 fanaan oo waaweyn runtii ayaa lagu yiri habeenadii markii barnaamijka dhigayeen riwaayad bisay lagu talagalay markaan meesha ka dhigan ayaa niman saaxiib nahayo kabanka iitoo jira Axmed Xasan Caynaan la yiraahdo wuxuu khasbaynaan intaan barnaamijka la bilaabin aan anigu hore u sameeyay dabadna laba heesood oo heesna Maxamed Salabaan la heesna uu lahaa Cabdi Tali ayaan anigu hore ahaan sorry uga qaaday marka dadkii oo ku leedaanay heestaas ay igu horeysay heestan masrax soo taabay heestii igu horeysay qaaday macnaha heestan anigu leeyahay marka waxay ahayd heesta leedahay Nawaal marka ma kaliya baqaadi heesta maxaa iska lahaa midheedana in dhalinyaro aan saaxiibahay markaas oo imkana halka jooga leeyahay Cumar Awaal Cabdi marka waa heestii igu horeysay codna aan sameeyo oo igu yiraahdo bal adigu heesta inta cod sameeyso adigu ku qaad runtii marka waan u sameeyay iyadoo codaysan oo waliba si macaan duwanay marka kaydkiina ugu jirtaa insha Allah waxaan jecelahay usoo bandhigo dadka in badan baa heesada baan leeyahay oo maqashay bal kuwii tii ugu horeysay arkaan baan leeyahay anigu qodheedu marka waynu soo deynaa insha Allah intaynan gaarin intaynu taa adaysan habaysan u gudbinayno bal ka waran hadda adigu adad sample ama cod ahaan oo tusaale macna u siiyo waxa weeyaan way qurux badan tahay waxay ahayd heesu codkeedu wuxuu ka bilaabmay noolaba dunyada wuxuna wilaya naxariista eebiyo nimcaynu ku waari noolaba dunyada wuxuna wilaya naxariista eebiyo nimcaynu ku waari markii dambe Abu Dhabi inta joogtay Abu Dhabi waxaan joogay 9 sano marka 9 sano suugaan fara badan baad ku samaysay dabcan deyntii labadii heesada ugu horeeyad ka xustay ya ku sameeyay heesaha kale aad qaado wallahi way fara badnaayeen dhalinyaro fara badan baa joogay abwaana joogay sidaan ku sheegay rag fara badan oo aan cidiba inta badan u aqoon inay suugaan yihiin ama maxay ahayd ay wax curiyaan ayaa jiro dhalinyaradana kamid ah oo maxay ahayd aan cidiba aan u sii fiirsanay magalaysa wax sameyn karaan laakiin aniga hortii inta aan meesha joogay cid wixii liibay sababtoo waxay igu cajiib badan dhalinyaraha oo waliba anaga lodkayga waliba naga siiraa markaas oo maxay ahayd abwaana oo loo rajay على خليج baa la yiraahdaa inuu jooga Holland uu jooga marka waxa kamid ahayd heeso ninkaas ii dhiibay labada heesood heesahani way baxday runtii badan bay dadku malaa maqleeno heesta la yiraahdo hibo runtii marka midhaha uu sameeyay runtii aad baan iga cajabiyeenoo de xilliga qaabka ay wax u sameyn jireen dadkii hore abwaanada ay wax sameyn jireen baan u sameeyay nooc kale duwan bad moodisay wax sameeyay ujeedadiisa iyo toosan marka uu ka hadlay oo ahayd hadaan awada hibo hablaha uga leexdo haween badartaawna maltaada ku luqay haddaan awada hiboy hablaha uga leexdo haween badarta u naco hiloobay kaagago armaad iga hiilsaa halaysa wada jirko halkan kula doonayo hagaaga ka weecata intaan hawshaasi dhicin hadgeed arrinteenu noqon balan hadalkaba jare maxaa adiga kula haboon
maxaadiga kula haboon saasay marka maxaa adiga cajiib kugu noqotay waxa cajiib igu noqotay runtii dee abwaanadeenu markay midhaha samaynayaan had iyo jeer araar bay u sameeyaan maxay ahayd meelay soo maraan oo matalan dee ama muuqaal guud bay soo qaataan oo dhinaca dhaqanka oo ama dhirta ha noqoto ama cirka iyo daruurta ha noqoto ama deegaanka oo kale quruxdiisa ha noqoto ama faras iyo dee magaranaysaa geeyo qurux badan iyo geel iyo waxbay u soo qaataan marka ninkani intii midna umu soo marinay si toos ah uu ujeedadiisa isagu intuu uga hadlay ayuu haddana dee sidii weliba uu ka doonaya ay noqoto anigana way runtii aad bay la qurux badnaatay aniga qolada markaa runtii dee midhaha aad umaan kala saari karayno way igu cusbaayeen laakiin markii aan ujeeda ahaan aan arkay unbay aad la qurux badnaatay iyo daadii markaa uu isagu runtii ku jiray araar baan lahayn marka maxaa kugu xigay markaa kadib waxay igu xigtay heesta leedahay jacaylka cusbaayo ha jabin anigu dee heesta waxaan u aqaanay oon bixinay jeegaan laakiin dadku markii dambe jacaylka cusbaayo ha jabin bay ku magacaabeen heestaa waxaa iska lahaa codkeeda sameeyey cabdi baadir nin la yidhahdo fanaana oo fanaaniinta waa beri ka mid ahaa midhaheedana waxaa iska lahaa ninkan heesta nimanka aan tirinayey midhaheeda sameeyey iyana waxay ahayd in badan baa kolley dee dadku maqleen baa filaya jeegaan yahay waxaa tahay jidharooriya daayo jiifto xareedii jidhaamuhu milaalmeen mulacuna jaleelada kaga jooga raysko jiiciye maraagana way ladhku isjisho jiriqidooda yaabto dhirto ubax ku jaran yaho ruuxii jaleeca la jeclaysta eegmada jacaylkii cusbaayo ha jabin jira kuma haleeshee ha jabin weligaa jiro ha jabin ha dhicin ha jabin ha dhicin ha dhicin ha jabin ha dhicin ha iga jabine iyadana saasaa codkeedkiisana markii dambe fanaan weyn baad noqotay caabi markaad heesahaas hore aad sheegtay qaaday oo si aad u caan baxay ma ka qayb gashay riwaayado macruufa ama la wada garanayo runtii riwaayadii iga horreysay intii dee aan halkaa joogay ee aan maxay ku dhex jiray hawshan waxay ahayd riwaayad uu noo dhiibay abwaanka la yidhaahdo axmed salaam bidi taa waxaan markaa kala qayb galay oo maxay ahayd iyagu dee nooga horreeyey markaasoo fanaanin waaweyn ahaayo nala mateliyey cabdi tahliil ruun xadi saban niman dhallinyara aan halkaa wada joognay iyagu qudhoodu dee fanaanin caan baxay oo maxay ahayd dalka laga yaqaano laga bartay aan ahayn laakiin halkaa dee iyagu qudhoodu kusoo baxay oo ka mid ahaa xasan cismaan la yidhahdo xasan beyle cabdiqabowjiye nin la yidhaahdo oo dhallinyaro ah oo iminka isaga qudhiisu maalin dhowta heesii ugu dambeeyey lasoo qaaday nimco yaasiin cabdiqabowjiye markaa dee halkan uu bulkula baxay annagu halkaa markaanu joognay cabdi waxaan u naqaanay cabdi khasaare guule daahir samatar isaguna nin la yidhaahdo oo imika barsaab ku-xigeenka ahaa maxay ahayd gobolka togdheer ama burco rashid irdaale dhalinyaro runtii aad u fara badan baa riwaayadda ka qayb qaatay kuwaasaan ka mid ahaa markaa aniguna aniga iyo markaa cabdi khasaare ayuu hees noo wada dhiibay axmed maxay ahayd salaamide heestaasaan ka qayb qaadanay riwaayaddana waan la jiray taasaa igu horreysay riwaayadan wax ka jiro oo aan ka qayb qaato riwaayadaas maxay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay laba nin oo walaal ah oo gabar kala qaadaya marka yani xumaanta qofku dee walaalkii inuu hadduu xumaan ku sameeyo cafini karo oo uu dayn karo uu dhaafi karo xumaantiis kana argoosan karin markaa ay dadka tusaysin dhinacii xumaantu laakiin iska taagay isagoo wuxuu damcay inuu dilo calooshubu midi ka geliyay walaalkii waxaa matalayay markaa aktarka ahaa riwaayadda cabdi tahliil xasan beyle uu ahaa markaa ninka maxay isna uu ku dhufanayay midida markaa gabadhii la isku qabsay wacdaraha walaalaha rumaad wacdaraha jacayl ma wadaagayaan buu ahaa riwaayadda magaceedu taasay marka maxaa looga jeeday taas leen ma dhacdo laba wiilasha walaalihii marka la eego Soomaalida